waran haddii lagu sheego waqtigaad dhiman lahayd oo lagu yidhaahdo inaad geeriyootid keliyaata waxa ka harsan 6 bilood falcelintaadu maxay noqon lahayd maxaad se dareemi lahayd waxay ahaayeen lamaanahani aroos cusub oo muddo yaruun ayaa ka soo wareegtay waqtigii guurkooda balse nasiib xumo ninkii waxa ku dhacay kansarka maskaxda haddaba qisada lamaanahani waxay si weyn u qabsatay baraha bulshada waxa la yaab iyo ama kaag ku noqday dadkii oo dhan ficilka ay gabadhani samaysay markuu ninkeedii xanuunsaday markaad qisadan si fiican u dhooxdo una dhageysato waxaa rajaynayaa inay adigana saameyn kugu yeelan doonto ficilka ay gabadhani samaysay soo dhowow mar kale daawade waa anigoo ah Nadare Siciid laga yaabaa inaanad mar kale arag haddaba nagu soo biir imaka naguma khasaari doontide ha ilaawin inaad xaqiisa siiso fiidiyowgan adigoo like saaraya mahadsanid ninkan magaciisu waa Bebig wuxuu yidhi 9 sano ka hor waxaan la kulmay gabadhii noloshayda oo dhan bedeshay waa qofkii adduunka ugu qaalisanaa ugu wanaagsanaa wuxuu yidhi waxaan ogaaday inaan ahay qof nasiib badan magaceedu waa Siraajna waxa ay ku kulmeen amba uu ku bartay gabadhan iskuulkiisa Bebig wuxuu yidhi tani waa qisadii noloshayda wuxuu yidhi maan moodaynin mana ogeyn inay noqon doonto xaaskayga 6 sano kadib waxaan isku fahanay buu yidhi inaan guursado Siraajna Bebig wuxuu yidhi maalintii guurkeena midba midka kale ballan ayuu ka qaaday ballantaasoo ahayd inaanu isku dul qaadano una samirno nolosha wax kastoo na soo wajaha xaalad kastoo adagna aanu ku dhaafno midba midka kale isagoo u samraya Bebig wuxuu yidhi ballan iyo wacad adag ayaan wada galnay anigii xaaskaygu in aanan nolosha ku cidlayn doonin balse wax kastaaba sidii aanu u qorshaynay umay dhicine siduu Allah u qoray bay u dhaceen 2022kii aniga iyo Siraajna waa xaaskiisii wuxuu yidhi waxaan u guurnay xaggaas iyo Mareykanka si aan waxbarashadeeda u dhamaysto welibana PhD-gayga aan xaggaas ugu soo qaato markii ay u guureen Mareykanka Bebig xaaskiisii wuxuu u sheegay tani inay tahay kaliya bilowga noloshooda wuxuu ku yidhi waxay noo harsan maalmo kale oo aad u qurux badan in badan ayaan kaa farxin doonaa wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah markii aan u soo guurnay anigii xaaskaygu Mareykanka waxa ii soo dhacay telefoon ka imanaya wadankii waxaan maqlay buu yidhi hadalkii iigu naxdinta badnaa abid waxa lay sheegay hooyadii macaan inay geeriyootay maalin aad u murugo badan ayay ii noqotay oo weliba aanan ilaawi doonin nasiib wanaag maalmihii adkaa iyo niyadjabkii isoo maray waxa ila dareemaysay xaaskaygii oo qayb weyn ka qaadanaysay farxadayda Bebig wuxuu yidhi marnaba ma ilaawi doono maalmahaas muddo yarun kadib 2023kii Bebig wuxuu yidhi waqtiyada ka mida waxaan dareemay madax xanuun aad u fara badan madax xanuunkaas si kadiisa ayuu iigu soo booday waxaan islahaa waad caafimaadi doontaa maalmo kadib anigoon weli dhakhtar u tegin waxaan aaminay keliyaata inuu madaxu iska kay xanuunayay madax xanuunkii saa'idka ahaa waxa iigu darsamay inaan socon kar waayey waxaan dareemay daal badan iyo tamar la'aan xitaa waan awoodi waayey inaan wax qabsado Bebig wuxuu yidhi maalmahaas xaaskaygu waxay iigu odhan jirtay laga yaabaa inaad daashay shaqadii kaa tanbadatay iyo waxbarashadiiba waxaa dhici karta inaad u baahan tahay nasiino badan iyo kafee inaad cabtid markasta wuxuu yidhi niyadda ayay ii dhisi jirtay iyadoo ii sheegaysa inayna wax weyn ahayn madax xanuunkani uu iska tegi doono maalmo kadib waan u adkaysan kar waayey xanuunkii taasina waxa igu qasabtay inaanu dhakhtarka tagno nasiib xumo baadhitaan kadib markii madaxayga la baadhay dhakhtarkii wuxuu ii sheegay in igu dhacay brain cancer weliba stage 4 uu yahay kansarka maskaxda isla markaa anigii xaaskaygu adduunkii quruxda badnaa aanu ku noolayn anagoo arkayna ayuu burburay runtii waa marxalad aad u adag taasoo sababtay maalin kasta inaanu isku dul oyno Bebig wuxuu yidhi bil gudaheed waxaan galay 2 qalin in ka badan muddo yar kadib haddana dhakhtarkii wuxuu noo sheegay keliyaata inay ii harsan tahay 6 bilood ilaahay ayaa dhimashada haya balse wuxuu ii sheegay inaan geeriyoon doono Bebig wuxuu yidhi bilooyin kadib waxaan arkay anigoon hadli karaynin oo hadalkiiba iska waayey sidoo kale aan socon karaynin xitaa waxba aan qabsan karaynin waayo controlkii maskaxdaydu wuu lumay wuxuu yidhi sidoo kale waxaan waayey xasuustaydii markastoon damco inaan nolosha ka niyad jabo
amba aan isku dayo inaan ooyo dhibaataday haysata awgeed waxaa garabkayga istaagi jirtay iyadoo i dareensiinaysa inaanan keligay ahayn. run ahaantii wakhtigeedii ugu badnaa ay mudnayd inay faraxdo noloshana ay gasho ta ugu quruxda badan. aniga ayay igu bixisay sida ii xanaanayn lahayd. garabkayga marnaba kamay dhaqaaqin, mar kastana way i daryeeli jirtay, way iga qoslin jirtay iyadoo niyadda ii dhisaysa. maxaa ka qurux badan ballan laguu qaaday marka laguu oofiyo. wuxuu yidhi marnaba xaaskaygu may ilaawin ballantii maalinkii aan guursanayay aan wada galnay. nasiib xumo wakhtigaygu wuu soo dhammaaday. waxaa la gaadhay xilligii adduunyada aan macasalaameyn lahaa. waxaanu dareennay niyad jab iyo murugo aad u fara badan. ugu dambayn xanuun iyo samir badan kadib waxaa kala fogaysay geeri. adduunkii wuu ka tegay beebig wuuna geeriyooday. qisadani waxay maalmihii ugu dambeysay qabsatay baraha bulshada. runtii waxay ahayd qiso aad u murugo badan. daawade qisadani siday kuula muuqataa, maxaad se ka baratay? nagula wadaag fikirkaaga dhanka kommentiga. ka waran dulqaadka iyo samirka ay u muujisay gabadhani ninkeeda. waad ku mahadsantahay haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. waa anigoo ah Nadare Siciid. waa inooyo mar kale iyo muuqaalka kan ku xiga.